Bismillahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhacdo la yaab leh oo ka dhacday Rajasthan, magaalo ku taalla waqooyiga Indiya. Nooc ka mid ah daayeerka oo la yidhaahdo languur waxa uu la kulmay daayeer ka samaysan boonbalo oo ay ku qarsoon tahay kamarada qarsoon ay hoosta kaga jirto. Daayeerkaasi wuxuu isku dayay in uu ka soo kiciyo meesha uu fadhiyo, waana ku soo wada urureen dhammaantood. Sidaad arkaysaan wuxuu isku dayayaa in uu kor u soo qaado si uu dhabta ugu qabto ilmaha yar ee daayeerka, isagoo u malaynayo inuu nool yahay ayuu eegayaa. Waxa uu damcay inuu dhabta ku qabto, balse waa uu ka dhacay. Markii uu ka dhacay aad buu u argagaxay daayeerkii weynaa, waana u qayliyey. Wuu soo qaaday, sidaad arkaysaan aad ayuu uga murugooday. Dhankaas ayuu la dhaqaaqay. Dhammaantood way argagaxeen, way soo wada urureen. Markii uu wax nuuxnuuxsiga ka waayay, dhulku iska dhigay. Isagu wuxuu malaynayaa inuu dhaawacmay, marna wuxuu malaynayaa inuu dhintay. Dhammaantood waa ay soo wada dul istaageen, sidaad arkaysaan. Hadda waxa uu eegayaa inuu dhintay iyo inuu dhaawacmay. Isagu waxa uu haystaa daayeer dhaba. Waa ay eegayaan si ay u hubiyaan inuu dhintay iyo in kale. Waa isugu yimaadeen. Waxa ay malaynayaan inuu yahay daayeer dhaba oo dhintay. Dhammaantood murugo ayay dareemeen. Aad bay wada murugaysan yihiin, waayo waxay arkayaan daayeer dhala oo hortooda ku dhintay. Laakiin iyagu waxay u haystaan daayeer dhaba. Way qaylinayaan, xataa yaryarkoodii baa qaylinaya. Waxa ay isku tacsiyanayaan sidii qof iyaga ka dhintay. Runtii waa arrin mucjiso ah, waana waxyaabaha ay uga eegyihiin dadka ibnaadanka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Intaas ayaan kusoo koobaynaa dhacdada cajiibka ah. Aad ayaad mahadsantihiin.